السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu soo socday kitaabkii ahaa alcarabiyatu bayna yadayk juskiisii labaad. waxaan kusoo dhex jirnay waxdada tobanaad alwaxdatu alcaashira. casharka ciwaankiisu wuxuu yahay alakalaatu sariica waa cuntooyinka degdega ah. addars casharkuna waxa weeye waa casharkii konton iyo toddobaad weeye. waxaa sheekaysanaya oo xiwaarkan uu ka dhexeeya hinda iyo badar. hinda ayaa hadalkii bilowday, waxay tiri nuriidu waxaan rabnaa tanaawul alcashaa'i cashada in aan kasoo qaadano oo kasoo cunno alleylata caawa khaarij albeyti guriga meel ka baxsan. banaanka ayaan rabnaa inaan maanta kasoo cunno cashada. badr ayaa hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi fikratun mumtaaza, waa talo iyo fikrad wanaagsan buu yidhi. anigu uxibu waxaan jeclahay alakalaata asariica cuntooyinka degdega ah. al abu aabihii wuxuu yidhi walaakina hase yeeshee tacaama albeyti guriga cuntadiisa ayaa afdalu ka fiican. fa huwa ladiidun cuntada gurigu waa mid macaan, waa nadiifun waa mid waxa weeye nadiifa, wa sixiyun waa mid caafimaad qabta cuntada gurigu. al ummu hooyadii ayaa hadalkii qaadatay, iyana waxay tiri sa-uciddu lakum waxaan idin diyaarinayaa sa-uciddu waan diyaarinayaa lakum idinka ayaan idin diyaarinayaa alleylata caawa cashaa'an casho ladiidan macaan ayaan idin diyaarinayaa. hindun hinda ayaa hadalkii qaadatay oo waxay tiri laa yaa ummi maya hooyo, naxnu anagu nuxibu waxaan jecelnahay alakalaata asariica cuntooyinka degdega ah ayaan jecelnahay. waayahay al usratu qoyskii tacuudu way soo laabteen oo way kusoo laabanayaan ila albeyti guriga ayay kusoo laabanayaan bacda tanaawuli alcashaa cashadii markii ay cuneen kadib gurigii ayay kusoo laabteen. iminka gurigii ayaa la joogaa. gurigii markii lagu soo laabtay hinda ayaa hadalkii qabsatay oo waxay tidhi ashcuru waxaan dareemayaa biaalaamin xanuuno shadiidatin daran fi lmaciddati waxaanan ka dareemayaa caloosha. badrun beder ayaa hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi wa ana aniguna aydan sidoo kale aahin alla buu yidhi badni calooshayda yani caloosha ayaa laiga hayaa anigana. al abu aabihii baa hadalkii qaatay wuxuu yidhi wa ana kadalika aniguna sidaasoo kale sidaasoo kale buu yidhi sidaasoo kale ayaana laga hayaa buu yidhi. al ummu hooyadii waxay tiri sa adlubu waxaan raadinayaa oo idin dalbayaa sayaarata al iscaaf. waxa weeye gaariga la yidhaahdo ambalasta ayaan idin dalbayaa. sayaara waa baabuurka, al iscaafna waa ambalas amaba gargaarka degdega ah waxaad u taqaanidba. xaalan hadda ayaan idin dalbayaa. rubamaa kaana waxaa laga yaabaa kaana inuu ahaa haadaa kani tasamuman sumow inuu ahaa baa laga yaabaa. cunto sunaysan inaynu cunnay baa laga yaabaa. al abu aabihi wuxuu yidhi laaxadtu waxaan arkay ana almadcama hoteelka amaba maqaayadda, dadka qaar waxay dhahaan hotel ma aha hodheel ayay dadka qaar dhahaan, dadka qaarna waxay dhahaan maqaayad ayay dhahaan. ana almadcama maqaayadda cuntada laga cuno kayra nadiifin inay tahay mid aan nadiif ahayn. wakadalika sidaasoo kale waxaan arkay buu yidhi odaygii cumaal almadcam maqaayadda dadka shaqaalaha ka ah iyana sidaasoo kale waxay ahaayeen kuwa aan nadiif ahayn bay ahaayeen. al ummu hooyadii waxay tiri wa kaanat ilmaa-idatu xeeraduna waxay ahayd wa kaanat ilmaa-idatu xeero halkan lagama wada miiskii baa laga wadaa. wa kaanat ilmaa-idatu miiska cuntada lagu cunayana wuxuu ahaa wal adbaaqu iyo saxanada aynu wax ku cunaynay suxuuntu wal akwaabu iyo koobabka aan wax ku cabaynay muttasikhatan kuwa wasakhaysan bay ahaayeen. hinda ayaa hadalkii qaadatay waxay tiri lam atanaawal acaama cuntada ma aanan lan atanaawala ma cunayo adacaama cuntada maratan ukhraa mar kale khaarij albeyti guriga meel ka baxsan kama cunayo mar dambe maqaayad layguma ogo bay tiri. alum hooyadii baa hadalka qaatay waxay tii haa hiya waatan sayaaratu liscaafi ambalasta gaarigeedii waa kan, gaarigii ambalastu waa kan, waa yimid qad wasalat waa ay soo gaadhay oo way timid.
الوحدة العاشرة ولي وحن كل حجرنا chapter كي طبنات درسنا وحوي ودرسي كونتون iyo sideedaad tahyi'a waa diyaar garoobid fakir waxaad ka fakartaa fil ijaabati ka jawaabida iyo sidaad uga jawaabi lahayd can al-asilati taaliya su'aalahan soo socda mal amaakinu alcaama maxay yihiin meelaha caamka ah ee guud calaa man taqacu iyay ku dhacaysaa mas-uuliyata nadaafati nadaafada xilkeeda iyo mas-uuliyadeedu alcaamati ee guud nadaafada guud xilkeedu yaa uu saaran yahay ما رأيك محي تهي تلادادا يفكر كاغا في الدولة دولة التي تاسو تهتم دانيسا بالنظافة نظافة محاد وياهي تلادادا يا رأيك كاغا دولة دانيسا نظافة محاد كلادا ما رأيك محي تهي تلادادا يفكر كاغا كلادا في البلد ودنك الذي كاسو لا يهتم أن دانينين سكانه ددك دقني بالنظافة نظافة أيسان دانينين وايه نظافة البيت وقرق نظافة ديسة النظافة نظافة النوعان ولما النوع نظافة خاصة ونظافة قارئة يو استاهرين قارئة ونظافة عامة يو اسنظيفين جود فالنظافة الخاصة نظافة قارئة نظافة جسم الإنسان وبني آدم كجركيسا نظيفينتا أو نظيفيو وثوبه مرديسا أو نظيفيو وطعامه عنتديسا أو نظيفيو وبيته قريسا أو نظيفيو واي إنا نظيفيسيد جركاغا إيو داركاغا إيو عنتدادا إيو قريغاغا تاسفا نظافة قارئة أما النظافة العامة نظافة قود مياه فنظافة الأماكن العامة مالها قود إن لا نظيفيو وي فنظافة الأماكن ماليه نظيفين تودي وي العامتي أجود وحوي بابل أن لا كلا لهين دتك كده حيسين وايه كالشوارع سيدي شدتك أهي سيدي شدتك أمبا ودوينك واحد أهديد به والحدائق يباره وتقع ويكون عيسى مسؤولية النظافة حلك نظافة الخاصة إيجارك على الأفراد شخصياتكي iyo afraadi iyo qof walba gaarkiis ay ugu dhacaysaa nadaafadaada khaaska ah ee adiga laga rabo in gurigaaga iyo nadiifsatid dharkaaga mas'uuliyadaas aday ku saaran tahay ama mas'uuliyatu nadaafati xilka nadaafada alcaamati ee guud fataqacu waxay ku dhacaysaa oo laga rabaa ala al-afraadi qof walba waxa weey mas'uuliyadaas waa laga rabaa والحكومات وحاكلا أو لجرها مسؤولية دا جود أو أي سارنت هاي دولتي أي سارنت هاي حكومة ودولته والحكومات هي دولته يقاس وحالوجا قياسات تقدم دول الدولة ده هرمرك وحالوجا قياسته اليوم ما أنت بالنظافة نظافة أي لوجا قياسته فإذا كانت هدي هاي دولة وسكانها يدتك دقين يهتمون كودنا بالنظافة نظافة فهي دولة متحضرة ودولة خير مجالة أي مركز دولة على لها وإذا كانت هذه الدولة وسكانها يدتك دجن لا يهتمون كوأندنين بالنظافة نظافة فهي دولة متخلفة ودولة وحوية تبقى دعها أو جدال أسعتوي وهناك وحال كاترة دول مشهورة دولة عانة في العالم الدنيا كجرة واي وهناك وحال كاترة دول مشهورة دولة باتشرة دول وهناك وحال كاترة دولة أو مشهورة عنكو في العالم الدنيا دحدة بالنظافة نظافة أي عنكو دولة الدنيا دحدة كو عن بحيبة نظافة أي أشر وهي قليلة وانا دولة يرير مثل ماليزيا ودن كالدها وحاكم ذا ودمداس ماليزيا ودن كلا يراهدو وسنغافورة يا سنغافور ودن كلا يراهدو باينا كميدا وهناك وحا الدنيا كسوغان او جوغا دول دولة او اخرى كلا او مشهورة كو عن بحي عن كو بالقدارة والسخنمدا يا اسكا عن كو وهي كثيرة ويفربدينهن دولadahaasi way farabadan yihiin way dawladahaas marka ma uusan sheegin way tunfiqu ba'd dawladaha qaar waxay ku bixiyaan amwaalan xoolo kathiratan farabadan ala nadaafada ay ku bixiyaan dawladaha qaar kood oo nushaahid waxaan arkaynaa al'aan hadeerto fi kulli madinatin magaala kasta waxaynu arkaynaa umaalan nadaafada
waxa weeye shaqaalahoodii ayaynu arkaynaa dadkii ka shaqaynayay nadaafadda ayaynu arkaynaa oo yajuubuuna wareegaya ashawaarica jidadka wareegaya yaxmiluuna kuwaas oo qaadaya xaawiyaata nadaafati nadaafadda waxa weeye haamahoodii iyagoo sida ayaynu arkaynaa cumaal iyo shaqaalihii nadaafadda ka shaqaynayay oo wadooyinka wareegaya iyaga oo sidaa haamaha nadaafadda ayaynu aragnaa wayadacuunaha iyagoo dhigaya fii sayaaraatin khaasatin baabuur gaar ah oo loogu talagalay inay qashinka qaadaan ayay haamaha nadaafadda ay dhex dhigayaan taxmiluhaa taasoo baabuurtaas u qaadaysa khaarij almadiinati magaalada waxa weeye meel ka baxsan baabuurta ayaa u qaadaysa lituxriqa si ay u gubto qashinka wa yushaariku waa uu ka qayb galaa almuwaadinu qofka muwaadinka ah addawlata dowladda ayuu kala qayb galaa alihtimaama danaynta binadaafati nadaafadda la daneeyo qofka muwaadinka ah isna wuxuu kala qayb galaa dowladda ayuu kala qayb galaa danaynta nadaafadda iyo ilaalinta nadaafadda xaythu meeshii yadacu uu dhigaya annufaayaati waxa weeye qashinka alkhaasati khaaska ah bibeytihi gurigiisa uu dhigayo qashinka waxa weeye khaaska ah wuxuu dhigayaa gurigiisa walatii yajiduhaa uu helayo fi shawaarici jidadka uu ka helayana walxadaa'iqi iyo mataqaanaaye beeraha uu ka helayana fi lxaawiyaati wuxuu dhex dhigayaa haamaha ayuu dhex gelinayaa waaya qashinkii khaaska ahaa gurigiisa ayuu dhigayaa kii wadooyinka iyo beeraha uu ka dhex helayna wuxuu dhex gelinayaa haamihii qashinka loogu talagalay ayuu ku dhex tuuraya wa haadaa kana maa dacaa ilayhi rasuulu waa wuxuu rasuulku ugu yeeray sala allahu alayh wasalam naxariista nabadgelya korkiisa ahaatee fii qowlihi orahdiisii ahayd uu dadka markaa ugu yeedhay ee ugu baaqay imaadat ladaa dhibaatada in la leexiyo cani dariiqi jidka laga leexiyo sadaqatun waaba sadaqo ayuu nabigu sal ly slam yihi inaad qashin iyo dhib iyo qodax iyo dhalo iyo wax dhiba oo wadada yaala inaad ka leexisid waxa weeye waaba sadaqo ayuu nabigu sal ly slam yihi naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee maanta casharkeenii intaas ayuu ku egyahay intaan casharkan cashar lamida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu